بسم الله الرحمن الرحيم وهبين مسبتيه أو أي حد سو جريسو لحية لباتنك بشا جولاي سنة كالبكون لباتن يشان أو كوبهجن كوذا بشا صفر سنة كون أفر بقول أفرتن يتضبا تاريخ الهجرية كسو دوادا مركله يبرامجكي قبرها قضبة برامجك عوان ذي كوهيننا وحا كمدا howlgal culus oo dabin ah oo lagu beegsaday ciidamada Israa'iil oo gordhaweyta ka dhacay Mareyka Gaza qasaaro culus oo dhimasho dhaawac isugu jira oo soo gaaray ciidanka duulaanka ah warbaahinta Israa'iil oo dadweynaha ugu baaqday in ciidamada loo soo duceeyo waxaana gudaha Israa'iil ka taagan xaalad borodiq iyo tacsiya madaxweyne Vladimir Putin oo jeediyay hanjabaad culus oo nuclear xilli ay sii xoogaysanayso xiisadda Ruushka iyo NATO ruushka oo dhul hor leh ka qabsaday Ukraine iyadoo ay socdaan dagaalo culus Trump oo ku dhawaaqay in xabad joojin uu kala hadlay madaxda wadamada Cambodia iyo Thailand sheekada ugu dambeysay barnaamijka Qasar oo arrin cajiib ah ka sameeyay carabka barakaysan booliiska ayaa xiray ninkan oo la sheegayo inuu dhashay dalkaasi Masar sheekadan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii war ah ee soo kordhaytayna hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka qubanaha soo dhawaada mar kale daawadaya si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa dagaalka Ukraine halkaasi oo lagu soo waramayo ruushku dhul hor leh inuu ka qabsaday Ukraine waxaana lagu soo waramayaa dagaalo culus inay ka socdaan furimaha hore ee dagaalka wararka ugu dambeeya ruushka ayaa waxay sheeganayaan in ay qabsadeen deegaan ku yaal gobolka Dnipropetrovsk ee bariga Ukraine taasi oo noqonaysa deegaankii labaad ee gobolkaasi laga qabsado tan iyo markii uu bilowday duulaanka military ee Ukraine lagu qaaday bishii February sanadkii 2022 Moscow waxay sii wadaa horumarka ay ka sameynaysaa dhulka Ukraine iyadoo wadahadaladii saddexaad ee nabadda ee u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine ee ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga maalintii Arbacada ay ku soo dhamaadeen isfaham la'aan ciidanka Ruushka ayaa bayaan ay ku daabaceen barta Telegramka waxay ku sheegeen in ay xoreeyeen tuulada Malivka oo ku taal gobolka Dnipropetrovsk Ruushku waxa sidoo kale uu shaaciyay inuu la wareegay tuulada yar ee Dishanov oo isla gobolkaasi ka tirsan haddii la xaqiijiyo qabsashada Malivka ama Malivka ayaa noqonaysa guul calaamad u ah niyad-jab ciidanka Ukraine la soo darsay guul kasta oo dhab ah Ruushka uu ka gaaro gobolka Dnipropetrovsk waxay noqon kartaa mid istiraatiiji ah marka la gaaro wadahadalo dhab ah oo lagu raadinayo xalka dagaalka labada dhinac gobolka Donetsk ee bariga Ukraine Ruushka ayaa sidoo kale maanta wuxuu daboolka ka qaaday in uu la wareegay tuulada Zelenihayai taasi oo ay ku tilmaameen mid xasaasi ah oo muhiim u ah sahayda ciidanka Ukraine wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa xaqiijisay in Zelenihai ay difaacayso xadka maamul ee u dhaxeeya Donetsk iyo Dnipropetrovsk waxaana la soo bandhigay sawirro muujinaya duqeymo xagga cirka oo xooggan oo lagu hay aagaasi iyo askar Ruush ah oo calanka Ruushka suraya dhismayaal burbursan oo ku yaal beeraha cagaaran ee magaaladaasi hagaag haddaba intaana ka bixin wararka la xiriira Ruushka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa jeediyay digniin culus oo nuclear xilli ay xoogaysanayso xiisadda kala dhaxaysa dalkiisa NATO warbixin amuraha ku aadan waxaa soo jeedinaya wariyahayaga Cabdi Fataax Mawlid Xaaji Cabdi madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa si cad oo aan gambasho lahayn uga hadlay awoodda nuclearka ee dalkiisa isagoo digniin adag u diray reer galbeedka kuna sheegay in maraakiibta quwadda nuclearka ee badda Ruushka ay diyaar u yihiin khatar kasta oo ka timaada dhanka NATO ama wadamada reer galbeedka Putin ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay tirayaadka nuclearka oo ah awoodda nuclearka ee cirka dhulka iyo badda isagoo sheegay in Ruushku si joogto ah u horumarinayo si loo ilaaliyo isu dheelitirka caalamiga ah ee awoodaha military tirayaadka nuclearka ee Ruushku waxay sugaan isu miisaanka dunida reer galbeedku waa inay si cad u fahmaan in Ruushku uu dhisayo maraakiibta jiilka shanaad
kuwaasoo ku qalabaysan gantaalaha casriga ah ee zircon iyo bulava isu dheelitirka istaraatiijiga ah waa la ilaalin doonaa qiimo kastoo ha ku kacdo ayuu yiri madaxweyne Putin wuxuu hadalkan ka sheegay xili uu booqanayay warshada Sevmash ee ku taala magaalada Severodvinsk oo ah goobta ugu weyn ee lagu dhiso maraakiibta nuclearka ee Ruushka waxa la xaqiijiyay in laba markab oo cusub oo nooca Borey A ah iyo kuwa weerarka ee Yasin M haatan lagu dhisayo halkaas maraakiibtan cusub ayaa leh awood ay ku qaadi karaan gantaalada Bulava kuwaasoo xambaari kara madaxyo nuclear ah iyo gantaalada Zircon oo ah kuwa xawaare sare leh laguna beegsan karo difaacyada casriga ah hadalkan Putin ayaa imaanaya xili xiisada u dhaxaysa Ruushka iyo reer galbeedka ay sii xoogaysanayso iyadoo Ruushka uu doonayo inuu muujiyo in awoodiisa nuclearka aan la fududeysan karin Cabdi Fataax Mawlid Xaji Cabdi HBN Online TV وهاجاج عبد الفتاح آد بأمها سنيهاي وركاس انتاسي أي نكجب قدمنا صدق دي معلومات اللي صار في دجال عرس أو قصارى سببي أي كرد حقرحي عيد مدة كامبوديا يكوى تايلاند هذا ور عصب أي عاوز سوكرني الحمد أمريكا كان دونالد ترامب أي واحد وشدي إن الحريري هجامياش الله وضع سوى الدن إسرائيل مركزنا وده هذا لذا سي ديرد اللجوء صاري سيدي مركزي حبتشوتشين دقدقة لو جارينها kadib dagaalada ka dhacay xadka labada wadan Trump oo safar gaar ah ku jooga Scotland ayaa ku qoray baraha bulshada fariin uu ku sheegayo in labada wadanba ay ogolaadeen in isla markiiba ay kulmaan si degdeg ah uga shaqeeyaan xabad joojin iyo ugu dambeyn nabad Trump ayaa intaasi ku daray in uu rajeynayo in dib loo bilaabi doono wadahadalada ganacsiga u dhaxeeya Mareykanka iyo Cambodia iyo Thailand hayeeshee wuxuu sheegay inaysan munaasab ahayn in laga wada hadlo arrimo ganacsi ilaa dagaalka la joojinayo sida hadalka uu dhigay tirada dadka lagu diray tan iyo markii dagaalkan uu bilowday 24kii bishan July ayaa waxay gaartay 33 askari oo 33 qof oo isugu jira askar iyo rayid halka boqolaal qof oo kale oo Thailand iyo Cambodia ka soo jeeda ay barakaceen hadalka Trump ayaa waxa uu ku soo aadayaa toddobaad ka hor inta aan la dhaqan gelin canshuuraha cusub ee Mareykanku ku soo rogayo wadamada Cambodia iyo Thailand laga bilaabo 1 bisha August shirkadaha Mareykanka ee alaabaha ka keena Cambodia iyo Thailand waxay bixin doonaan canshuur dhan 36% haddii aan heshiis la gaarin ka hor waqtigaasi goortii horeysay oo maanta Cambodia ayaa si rasmi ah ugu baaqday xabad joojin degdeg ah oo ay la yeelato Thailand wasiirka arrimaha dibadda ee Thailand Maris Sangiampongsa ayaa sheegay in dariskooda Cambodia ay tahay inay muujiyaan daacadnimo dhab ah oo lagu soo afjaraya dagaalka si wada hadalladu ay u sii socdaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qadka telefoonka kula hadlay ra'iisul wasaaraha Cambodia Hun Manet iyo ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka ee Thailand Buntum Wajayachi si xal looga gaaro xaaladdan waxaan u gudbaynaa wararkii ugu dambeeyay ee Gaza caawa dabayn culus ayaa laga soo warinaya inuu ka dhacay Mareykanka Gaza warbaahinta Israa'iil waxay sheegaysaa dhacdo culus in ay dhacday dhimasho dhaawac militariga Israa'iil ayaa la soo warinayaa warbaahintana waxay ugu baaqaysaa dadweynaha Israa'iiliyiinta in ciidamada loo soo duceeyo barodiq iyo tacsi ayaa ka socotay Israa'iil waxaan kaloo idin haynaa warar kale oo ku saabsan duqeymihii Israa'iil ee ka geysatay Mareykanka Gaza iyo waliba war ka soo kordhay doonidii ku soo jeeday Mareykanka Gaza oo intii aynu barnaamijkan hadda ku jirnay la sheegayo in ciidanka Israa'iil doonidaasi ay u daateen sheekadaas iyo sheekooyin kale iyo sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka intaan barnaamijkii qubanaha oo toos idin kaga imaanaya stuudiyaha iyaga koowaad barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka Facebook-ka Twitter-ka iyo Telegram-ka warbixino qoraal ah faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan barta internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirnaa HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka waa tahay waxaynu u gudbaynaa haatan Mareykanka Gaza warar kala duwan baa ka soo baxaya warbaahinta Israa'iil waxay sheegaysaa in caawa ciidanka Israa'iil Mareykanka Gaza ay ku qabsatay dhacdo amni oo aad u culus inta aan idin soo gudbin xoogagga iska caabinta Falastiiniyiinta oo ka warbixinaya wararkaasi dhanka Israa'iil aynu eegno ilaa hadda waxa laga helayo warar ah oo arintan la xiriira warbaahinta Israa'iil ayaa soo warinaysa in cutub ka tirsan ciidanka Israa'iil lagu weeraray
ama loo dhigayba howlgal damin ah oo ay u dhigeen xoogagga iska caabinta ee marayka Gaza inkastoo aan la sheegin meesha saxda ah ee weerarka ka dhacay dhacdadan ayay warbaahinta Israa'iil ku sifaysay mid aad u culus waxaana shacabka Israa'iil lagu booriyay inay u duceeyaan badbaadada askarta la weeraray inkastoo xayiraad dhanka faafinta warku ay saaran tahay gudaha Israa'iil oo militarigu ay sheegeen in warkan aan wax faahfaahin laga bixin karin haddana warbaahintu waxay sheegaysaa in qarax miino lala eegtay baabuur nooca loo yaqaan nimirka oo ciidamada lagu daabulo warar hordhac ayaa waxay sheegayaan in 3 askari ay geeriyotay dhaawacyo badanna ay jiraan militariga Israa'iil ayaa saacadihii la soo dhaafay waxay sheegeen in 9 askari looga dhaawacay shalay oo jimcaha marayka Gaza halka xoogagga iska caabinta Falastiiniyiintu ay beegsadeen ciidamada duulaanka iyagoo fulinaya weerar dhowr ah hay'adda warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in 8 askari lagu dhaawacay waqooyiga Gaza kadib markii lagu qarxiyay qarax laga soo buuxshay fuusto ciidamada oo ku sugnaa waqooyiga marayka Gaza waxaana jira warar kale oo sheegaya in dhismo uu ku soo dumay askarta haddaba war goordhaweyta ka soo baxay dagaalyahanada Al-Qassam garabka military ururka Hamas oo telefishinka Al Jazeera uu soo xigtay ayaa waxay sheegeen in 2 baabuur oo ciidamada lagu daabulo ciidanka Israa'iil ay leeyihiin ay ku beegsadeen 2 qarax oo kala duwan waxaana la sheegayaa in qasaaro balaaran uu jiro dhinaca kale Al-Qassam war ay hadda soo toortay intayna barnaamijka ku jirnay waxay ku sheegtay in dagaalyahanadooda iyo dagaalyahanada Saraya al-Quds in hoobiyaal ay ku garaaceen ciidamada Israa'iiliyiin oo ku sugnaa koonfurta Khan Yunis hadda waxa leeyahay gudaha Israa'iil waxa caawa ka taagan xaalad jahwareer iyo anfariir ah waxaana warbaahinta laga leeyahay loo duceeyay askarta baroodiiq iyo tacsiibaad halkaasi wixii ku soo kordhaa warkaasi intaynu barnaamijka ku jirnay ayaynu idin soo gudbin doonaa war kale oo degdeg ah oo hadda soo dhacay wuxuu sheegayaa ciidanka Israa'iil inay u daateen doonidii ka soo shiraacatay dalka Talyaaniga ee doonaysa in ay jabiso go'doominta lagu hayo marayka Gaza isgaarsiinta ayaa hawada ka baxday ilaa haddana lama oga macluumaadka iyo wararka ugu dambeeya inkastoo ilaa hadda inta la huba ay sheegayaan ciidanka Israa'iil doonidaasi inay u daateen wixii ku soo kordha warkaas waynu arki doonaa hagaag wararka Gaza aynu dib ugu laabanay 63 Falastiiniin ayaa lagu soo waramayaa tan iyo saaka in lagu dilay marayka Gaza duqeymo ba'an oo Israa'iil ay wado waxaana la sheegayaa duqeymahaasi meelo kala duwan inay ka dhaceen 34 qof oo kamid ah dadkaasi ayaa waxa la sheegayaa in ay ku dhinteen goobaha gargaarka lagu qaybinayo iyadoo la sheegayo militariga Israa'iil duqeyn aan loo meel dayin oo aan kala sooc lahayn inay ku hayaan marayka Gaza sida ay tabinayso warbaahinta Falastiiniyiinta waayahay iyadoo weli aad looga falcelinayo hadalkii madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo ku sheegay Faransiisku inay aqoonsadeen dowlad Falastiiniyiinta ay leeyihiin ayaa dalka Britain waxaa ka taagan dood aad u adag xildhibaanada iyo siyaasiyiin iyo diblomaasiyiin ayaa ku riixaya xukuumadda ra'iisul wasaare Keir Starmer inay si degdeg ah ku aqoonsato dowlad Falastiiniyiinta ay yeeshaan haddaba safiirka Israa'iil magaalada London ayaa waxay ka hadashay arrinkaasi waxaana ay ku tilmaamtay aqoonsi Britain ay siiso dowlad Falastiiniyiinta ay yeeshaan inay tahay arrin aad khatar u ah isla markaasna khatartaasi ku wajahantahay Israa'iil iyo si hadalka u dhigtay reer galbeedka waxaana ay ka digtay tilaabo caynkaasi ah waa si hadalka ay u dhigtay waxa haatan waxaynu soo gaarnay sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay alaab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen waxaan idin haynaa sheekada ku saabsan arrintan Falastiin ayaa dunida dhan qabsatay xitaa xaramkii barakaysana ayay tagtay kan waan u dhashay waddanka Masar wuxuu soo qaatay calanka Falastiiniyiinta isagoo dawaafaya ayuu wuxuu ku qaylinayaa aawi islaamkii wariyaa caraba wariyaa islaama Falastiin way dhiban tahay dadkii way dhimanayaan caruurtii way dhimanaysaa gaajo ayaa ka jirta marayka Gaza aawi dareenkii ninkan ilaa iyo intii uu waday arrintan waxaa la sheegay inuu ka faa'iideystay iyadoo booliisku aysan ka agdhoweyn goobta laakiin daqiiqadii ugu dambeeyay ayaa booliisku ay qabteen ilaa hadda faahfaahin dheerada lagama bixin tilaabada uu mudan doono waxayna arrintan ku soo aadaysaa iyadoo sidan oo kale dhowr jeer
booliska sacuudigu ay uga hortageen dad calanka falastiin watay ama qadiyadda falastiin duco iyo hadday noqotaba doodisba ka soo horjeeday waxaana ay sheegeen in xaramka loo yimaado si hadalka u yiraahdeen arrin cibaado oo kaliya oo aan loo ogolayn arrin siyaasadda ah laakiin arrintan waxa leeyahay waa arrin cid walba oo muslima saameynaysa gaar ahaan dadkan masaakiinta ee marayka qisa ku dhibaataysan gaajada 10 qof ayaa geeriyotay gaajana u geeriyotay saacadii la soo dhaafay ninka marka waxa leeyahay dareenka dadka muslimiinta ayuu ku soo duwayay xaaladan bacdama uu joogo gurigii alle iyo meeshii ugu muhiimsanayd koonkan aynu ku noolnahay oo ah xaramka barakaysan wuxuu ku soo koray ninkaas iyo arrimihiisana waan idin socodsiin doonaa insha Allah taala inta ayaan ku soo gabagabeynayaa caawa barnaamijkii qobanaha ana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir aynu barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo